ugu yaraan 30 qof ayaa ku geeriyootay qarax maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. qaraxaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad fara badan iyadoona la sheegay xilligii qarax uu dhacayay in suuqaasi uu ahaa goob aad saxmad u ah dad badanna ay ku sugnaayeen. wariyahana Zakariya Maxamuud oo tagay goobtaasi ayaa warkan inooga diyaariyay. qaraxan ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaabac waxaana uu ka dhacay suuqa ku yaala Kaawagode oo ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. xilligii qaraxa uu dhacayay ka mid ahayd xilliyada ugu mashquulka badan suuqa waxaana uu sababay burbur ku yimaaday gabi ahaan suuqa iyo xaafadaha ka agdhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay. kooxaha gurmadka iyo ciidamada nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu ka dhacay qaraxa si aan wax badan uga ogaano khasaaraha uu sababay ayaa wax ka weydiinay mid ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega iyo qof ka agdhawaa xilliga goobta uu qaraxa ka dhacay. run ahaantii maanta meeshaan waxaa ka dhacay musiibo aad u weyn. meeshaan aan taaganna waxay ahayd meel ay dadka ku badan yihiin zaxmadeedu aad u ballaaran tahay. ilaa amarkiis waxaa dhaca meeshaan gaari ayaa yimid isla markiiba macnaha saan aniga ku maqlay meeshaan ayuu isku qarxiyey dadkana waxay ahaayeen mid aad ay u buuxaan isla markiina yani waxaa meesha ka dhalatay khasaar aad u fara badan. maqalka dhigayga oo soo gaaray yani marka aniga goobtaan imid waxaa ku maqlay yani inay dhimasho aad u fara badan ay jirta dhaawac uu yaryahay laakiin dhimashada ay badan tahay ku dhowaad 20 qof ilaa 20 ka sii badan. marka khasaar weyn ayaa meeshaan shacabkii Soomaaliyeed ku soo gaaray. marka waxaan macnaha gurigan run ahaantii wuxuu ahaa guri ay degan yihiin dad qoys ah haddana agtiisa lagu iibiyo meel goob qaad macnaha lagu iibiyo agtiisa. khasaarihii meesha ka dhashay ayaa zaa'id u soo gaaray. maamo iyo caruurteeda macnaha meesha wada degnaa ayaa ku dhaaday. Qaadir Abdullaahi aniga meeshaan markii qarax ka dhacay waxaan joogay Banaadir dad ay soo waayeen waxay dhaheen Madiina qarax ka dhacay. aniga kulley markii emergency anaga Simbari emergency aan u taaganahay qarax markuu yeeray oo 10 qof soo wacday oo soo baxay sabab markaa maray 4 qofood oo dhaawac laga saaray waa soo qaaday isbitaal Madiina geeyay. neeyo inta meed aan arkay oo indheyga aan saaray 45 qofood waa hadda wax kale hadda waa la sii sheegay xaafadaha jira oo meedada dadka wada qaateen oo liiska noogu jirin inta saaran. gudoomiyaha degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahaa dadkii goobta soo gaaray waxaana warbaahinta uu ugu warbixiyay waxyaabihii uu la kulmay inta uu goobta joogay. musiibo ayaa halkan ka dhacday. ilaahay aan u noqonaynaa marka ugu horeyso dhib ayaa ka dhacay halkan oo ahaa suuq laga ganacsanayay oo bulsho kala duwan joogtay. runtii sida wax u dhaceen hadda waa uun sidan aad aragtaan. waxaan u tacsiyeenaynaa marka ugu horeyso intii ku dhimatay qoysaskoodii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka meel walba joogaan uga tacsiyeenaynaa. dhibka halkan ka dhacay runtii waa dhib culus ayaa ka dhacay oo loo bareeray saan dareemayno cadowga u bareeray inuu ummaddan oo dhibaateeyo muddo dheerna uu soo dhibaateynayay. halkan oo xilligii ugu biisiga badneed ahayd ayaa waxaan u qaadanay in gaari isku qarxiyay oo runtii aan muxuu ahaa wixii ka soo haray aan meesha ku aragnay ayaa muxuu ahaa ka dhacay. tira ilaa 20 ah ayaan xaqiijinay dhimashadooda. dhaawacna runtii aad u badan yahay. wax hadda ku sheego ma aqaano cadowga noocaasa ee ummadda sidaas yeelayo. waxaan rabaa un kaliya inaan u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed dhibkii ka soo gaaray halkan. waxaan muxuu ahaa aad iyo aad muxuu ka xunaa dhima karno waa qadar waa muxuu ahay in halka ku dhintaan ayay inta ku dhimatay Ilaahay u qadaray inta ku dhaawacantana inay halka ku dhaawacmaan Ilaahay u qadaray. laakiin cadowga Soomaaliyeed iyo waxa uu maleegayo iyo naxariis la'aantooda iyo muxuu ahay sida ay u fikirayaan runtii waxa la yahay ummadda Soomaaliyeed kuma niyad jabayso. ummadda Soomaaliyeed waxay ka helaysaa dhiri iyo adkaan iyo inaysan muxuu ahay cid la dhowray aysan jirin. ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay markaan ay noqonayso xilliga ay go'aanka qaadan lahaayeen waxaan dareemaynaa xilliyadii dambe ummaddu inay aad u faraxsanaayeen oo aad ay muxuu u riyaaqsanaayeen oo dawladnimada iyo wanaageeda iyo rajada ay leeyihiin muujinayaan. marka waxaan u qaadanaynaa wax noocan oo kale in ay loogu talagalay in dad ku dhinto kaliya aan loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed lagu aamusiyo ummadda Soomaaliyeed lagu niyad jabiyo. waxaan leenahay ummaddu sidaan kuma niyad jabayso ilaa idanka ummadda dhiig laga bixiyo muddo dheer muxuu ahay dhiigeeda la daadinayay muddo dheer la dhibaateynayay sidaana kuma niyad jabayso. waxaan rajaynaynaa inay muxuu ahay dhiiri iyo muxuu ahay ka kanaan iyo cadow ka hortagid iyo inay muxuu ahay iska caabiyaan cadowga noocaana iska ciribtiraan ay ka helaan aan rajaynaynaa. aad iyo aadna runtii waxaan muxuu ahay uga tacsiideynaa dhibka soo gaaray
halkan waa guri oo ka agdhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana la sheegay qoyskii ku noolaa in ay ka badbaaday hooyo keliya oo laga helay iyada oo dhaawaca zakariye maxamuud timacade Universal TV muqdisho